magacaygu waa xasan mudane waxaan ahay agaasimo ku-xigeenka macadka hibad oo ah macad darsa arrimaha nabadda horumarka siyaasadda iyo guud ahaan isbedelada ka socda geeska africa caawa waxaa miiskay noo saaran muxaadaro ciwaankeedu yahay taariikhda doorashooyinka soomaaliya intii u dhexaysay 1954 ilaa 1969 doorashooyinka dhacay ayaa caawa miiskay noo saaran waan isleeyahay runtii mawduucan waa mawduuc muhiim ah oo la rabo inay fahmaan dadka intiisa badan inay fahmaan aniga intii aan akhrinayay doorashooyinka 54 ilaa iyo 69 doorashooyinka dhacay intii aan akhrinayay qoraaladii laga qoray waxyaabo badan iga soo baxay casharo badan aan ka bartay waxaa ka mid ah gaar ahaan dadka dhalinyarada ah intooda badan aan aad u fahamsanayn taariikhdii lasoo maray wax badan ay ka baran karaan mawduucan intaan akhrina waxyaaba iga bax waxaa ka mid ahaa markaa fiirisay dhawaanahan doorashooyinka dhacayaan waxaa jira aad u soo laalaabtay ay ka mid tahay in ay ka mid tahay marka xilliga doorashooyinka la gaaro doorashooyinka ay dhacayaan in shakhsiyaad gaar ama wax la in la isku eeday in dadka qaar ay wadamo wataan ama doorashooyinka in la iibsado oo lacag lagu bixiyo ama la dhaho musharax hebel dal hebel ayaa wadata eedayn saas camal inay dhacdo ay soo baxdo markaa fiiriso dad qaar waxay u maleeyaan inay tahay wax markuu bilaado laakiin 19 kale doorashada dhacaysay oo kale doodahaasaa taagnaa in dadka qaar ama xisbiyada qaar lagu eedeynayo in masar ama ethiopia oo kale inay wataan ama lacag ay kasoo qaateen midda labaad oo aan la yaab waxaa ka mid ah oo aan arkay taariikhdeena doorashada waddankan ku jirta aysan ahayn wax nagu cusub laakiin siyaasadda hadda lagu arki karo ah in wax la yiraahdaa nidaamka dhaqanka qabaliga ama nidaamka dowladnimo ama maamulka dowladnimo in lagu dulmiso wax la yiraahdo in sheeg maamulka qabiil in la isdhexgeliyo masalan marka la gaaro xilliga doorashada kale waxaa arkaysaa odayaashii iyo dhaqankii iyo beelihii oo shir qabsanaya oo ergooyin soo dirsanaya kadibna qofkii golaha shacabka ku matali lahaa ama baarlamaanka ama qofkii ii sheeg xildhibaanka u noqon lahaa oo kale halkaas ku soo dooranaya marka waa wax 54 ilaa iyo doorashooyinka dambe ilaa 69 laga gaaro doorashooyinka dhacay wax soo laalaabtay ahaayeen waxaa nala jooga wasiir bafo waa agaasimaha xarunta dhaxalreeb in ka badan 40 sano ayuu ka shaqaynayay arrimaha bini'aadanimada wuxuu hore u soo noqday wasiirka hore ee beeraha dowladda federaalka wasiir soo dhawow waxaa haysataa 35 daqiiqo ayaa haysataa kadibna waxaan u furi doonaa dadweynaha ayaan u furi doonaa marka wasiir soo dhawow gudaha gal xasan waad mahadsan tahay aniga magacayga cabdi axmed maxamed aa la yidhahdaa baafo marka baafaha unbaa laigu yeeri doonaa insha allah intaan ku jirno hawshatan aan ku jirno waxaan run ahaantii aan macadka uga mahad celinayaa fursadda tan oo aan isleeyahay annaga xarunteennan la yidhaahdo xarunta horumarinta hogaaminta dhaxalreeb waxay ka shaqaysaa isku xirka dadkii way aragga ahaa farsamo yaqaanada ahaa ee jiilkii hore ah iyo jiilka hadda soo koraya meesha isaga xilmi lahaayeen baan ku dadaalnaa waxyaabahan rabno in ay suuro gashana waxa weeye in la isdhaafsado aqoonta iyo waayagnimada la isdhaafsado marka waxaan isleeyahay caawa maxaan fursad fiican bay tahay maartaan ku sheekaysano waxaa aan ka hadli doonaa mawduuca kan waxaan rabaa marka horeeto inaan ku bilaabo sida aan rabno inaan u waajahno waxaan idiin dul marayaa qaybaha aan taaban doono waxaan dhex maraynaa marka qaybahaas aan isla fiirin doonaa waxa aan ka hadli doonaa doorashooyinkii dalka 1954 ilaa 69kii waxaa doorashooyin ay dhaceen 1954 waxay 56 58 59kii 60kii 63 64 iyo 69 marka aakhirkana waxaan markaan dhameynana waxaan samayn doonaa dulmar yar baan samayn doonaa soo gunaanadeena maanta waxaan ku bilaabaynaa marka doorashooyinkii dhacay ee 1954 doorashooyinkaasi waxay ahaayeen doorashooyinka
deegaanka ayay ahaayeen laakiin marka hore aan ka horumarino xoogaa yaroo maxaan ku rahdaa hordhaca aan ka horumarino xaaladaas wixii ka horreeyey iyo meeshaas waqtiga aan taagnayn doorashada ay dhacaysay jawigii lagu sameeyey guud ahaan waxaa laga maarmaanaya inaan taariikhda soomaaliyeed aan maskaxda ku hayno marka aan doorashooyinkan ayaan ka hadlayno markii maxaa jira waa dowladnimadeenna iyo sidii loo dhisi lahaa iyo doorashooyinkaas ka hadlaya saad wada xusataan talyaaniga ayaa gumaysan jiray oo soo galay dalka soomaaliya qaybtiisa koonfurta waxaana xukunkiisa la oran karaa wuxuu saldhigay 1927 waxaa maxaan ku rahdaa talyaaniga intii uu dalka joogay isbedeladii ka dhacay talyaaniga gudihiisana saameyn ayay ku lahaayeen 1922 waxaa ra'iisul wasaare ka noqday dalka talyaaniga ka noqday ninkii la oran jiray Mussolini saad xusataan wuxuu ahaa fashistu ahaa dowladdiisana dowlad fashista ay ahayd waxaa isbedelay markaa Soomaaliya iyo maxaan ku rahdaa si looga dhaqmaayay gumaysiga uu la dhaqmaayay Soomaalida uu la dhaqmaayay 1935 waxa uu ka duulay Soomaaliya iyo Eritrea isagoo ka duulaya ayaa waxa uu galay Ethiopia uu galay maartay marka wuxuu qabsaday dalkii Ethiopia halkaas ka qabsaday taas waxay keentay marka in Soomaaliyadii Talyaaniga uu haystay ay ku darsado maxaan ku rahdaa gobolkii Soomaaliyeed oo maxaan ku rahdaa oo amxaarada gacanta ugu jirana inuu soo galo hal xukun soo hoos galo maartay 1936 sano kadibna waxay ku dhawaaqeen maanta boqortooyaha ku dhawaaqay Talyaaniga oo maxaan ku rahdaa bariga Afrika oo Soomaaliya iyo ay ku jirto maxaan ku rahdaa Ethiopia ay ku jirto 1940kii dagaalkii labaad ayaa Talyaaniga uu galay taasina waxay keentay marka in ay Ingiriiska ka qaataan waqooyiga Soomaaliya oo markaas Ingiriisku gacanta ku hayay laakiin muddo dheer ma ahayn muddo 6 bilood oo kale ah ayaashaas uu gacanta ku hayay waqtigaas markaa waxay dhumeen dhulka Soomaalida oo dhan oo ay ka baxsan Djibouti iyo NFD ka baxsan intii kale oo dhan hal maamul ay wada yeesheen markii la jabiyay Talyaaniga la jabiyay xukunkii Ingiriiska ay haddana intaas marka la isku qabsaday oo markaana NFD ay ku jirto maartay waqtiyadaas marka Soomaalida 1941 ilaa 48 waxaa dhalatay dood maxaa laga yeelaa dholalkii hore Talyaaniga uu gumaysan jiray markii Talyaaniga la jabiyay Soomaaliya marka waxay bilowday marka Soomaalida waxay bilowday dareen maxaan ku rahdaa wadaninimo inay hal dal isku yihiin inay hal dad isku yihiin oo doonayaan hal dal inay yeeshaan dood dheer oo dhex martay iyaga iyo UN-ka ayaa muddo dheer socotay 1947 waxaa la dhisay xisbigii naadiyaal baa dhashay naadiga la yiraahdo maxaan ku rahdaa HDM ama xisbiyad intii mas'uul marka dambe isu bedeli doonaa yaalka ka dhashay waxaa kaloo dhashay naadigii SYC ama Somali Youth Club marka dambe isu bedeli doona Somali Youth League isu bedeli doona 1948 waxaa la soo jeediyay dowladda Ingiriiska waxay soo jeedisay dhulka ay gacanta ku haysay Soomaalida oo dhan inay bal hal meel isugu keento oo iyada lagu wareejiyo oo markaasna Soomaaliya oo dhan iyada ay maamusho maartay arrintu waa socon weyday waxaa gacanta ku dhuftay maxaan ku rahdaa dowladihii xoogga lahaa oo kaleeto oo Ruushka ugu horreeyay ama Soviet Union ugu horreeyay marka 49kii baa go'aan waxaa lagu gaaray Soomaaliya in xorriyadeeda la siiyo 10 sano kadib inta ka horeysana ay sii maamusho maxaan ku rahdaa ay sii maamusho Talyaaniga oo sii maamulo maamulkaasi oo la yiraahdo maamulkii maxaan ku rahdaa walaayada la yiraahdo waxa uu bilowday 1950kii marka markuu Talyaaniga uu hawshaas dambe 7 sano uu bilaabayo dalku wuxuu kala qaybiyay ilaa iyo 6 gobol buu u qaybiyay wuxuu ka sameeyay marka degmooyinka marka la sameeyay iyadana waxa la bilaabay marka deegaanada in loo sameeyo maamul odayaasha in loo sameeyo halkaas waxaana magacaabayay marka qofkii governorka ka ahaa administratorka ka ahaa magacaabayay waxaa la dhisay marka 1950 bishii Decemberba
waxaa la dhisay gole la yiraahdo golaha maxaan ku rahdaa deegaanka ama territorial council la yiraahdo Soomaalida ay ku jirtay dadka loo ajnabi ah lagu soo daray mataqaanaa meeshaas ka bilaabatay in bal maxaan ku rahdaa Soomaaliya waxay maamulayso lagu bilaabo maartay 1953diina tiradii 35 tahayd waxa laga dhigay 51 laga dhigay xisaabta marka kale lagu soo daray waxa kale ku jiray maxaan ku rahdaa ganacsatada ku jirtay iyo beelihii kaleeto ama dadka ajnabiga ah oo jooga ayagana dad matalaya lagu soo daray maartay guddigaas marka waa guddiga Soomaalida ay soo gashay oo maxaan ku rahdaa maamulkii guud oo dalka ay maxaan ku rahdaa meel ay joogto kaga qayb galkay noqoto dadka hadda dambe to magaca ku yeelan doona siyaasadda Soomaaliyeed oo ku jiray waxa kamid ahaa Sheekh Cali Jimcaale kamid ahaa Sheekh Mukhtaar baa kamid ahaa dhinaca ganacsiga waxa ka yimid Cali Shida ka yimid Sheekh Saalax bin Umar baa kamid ahaa waxa kale oo dhinaca siyaasadda ka yimid Aadan Cabdulla marka dambe to noqon doona madaxweynaha dalka noqon doona Xaaji Faarax Ali Umar Xaaji Muuse Boqor Maxamed Cabdinuur Jooje dadkaasi golahaasi ku bilaabeen siyaasadda meesha ka soo bilaabeen halkaasi ahay anu nimaano marka waa inta waa yani intaan doorashada la gaarin waxyaabihii oo dalka ka soo dhacay ilaa waqtigaas ay intaas aan ka soo qaadanay marka 1954 sidii lagu heshiiyay oo heshiiskii dawladda Talyaaniga ay UN kala gashay kamid ahay in bal la sameeyo doorashooyinka dhinaca deegaanka in lagu bilaabo ilaa 20 xisbi baa markaa ka qayb gashay maanta dibadiina waxaana liisaskooda SYL waxay wada geysatay meel alla meeshii doorashada ay ka dhacaysay kuwa kale ma ayna geysan karin waxa kamid ahaa kuwa yar bay ahaayeen مثلا حزبية دقل مريفلو كليتو waxay geysatay 15 Union Africana de la Somalia oo la yiraahdo 22 meel bay geysatay qola Lega Progressista Soomaaliya 13 bay geysatay Union Nationale Soomaaliya oo la yiraahdo 7 meel bay geysatay marka SYL waxay ahayd marka xisbiga kaliya oo meel walba dad waxaan ku leeyahay u shaqeyn karayahay doorashooyinkaas marka 54 waxa la qabtay bishii March 1954 waa la qabtay ay waxaa isdiiwaan galiyay ilaa 50,000 ayaa isdiiwaan galisay waxaana codkooda dhiibtay 38,000 ku dhawaad marka waxaa lagu qiyaasaa ka qaybgalka dadka doorashada marka la yiraahdo 75 intii isqortay inay ka qayb gashay maanta tijaabo wixii ka soo baxay waxay ahayd in SYL ay ku guuleysato oo 140 kursi ama kuraas ay ka hesho 281 iyadoo lagu tartamayay maanta xisbiga ku xigana wuxuu ahaa HDM buu ahaa oo isna helay maxaan ku rahdaa 57 helay maanta marka waxaa la dhigi karaa 50% in ku dhow waxaa heshay SYL baa halkaasi ka heshay doorashooyinkaas lagu bilaabay oo maxaan ku rahdaa deegaanka dadka inay ismaamulaan ahayd waxaa looga gudbay 56 ayaa waxaa la yiri marka waxa loo sameeyaa gole maxaan ku rahdaa oo dalka dhan ah ayaa looga gudbay waxaana laga dhigay kuraasta maxaan ku rahdaa 70 kursi baa meeshaas ku jiray 60 kamid ah Soomaalida la siiyay 10 ajnabiga joogay baa loo qaybiyay doorashada marka oo lagu bilaabay marka doorashadaas oo maxaan ku rahdaa majliska waxaa laba nooc baa loo sameeyay dadka magaalooyinka deganna codkooda toos bay u dhiibanayeen waxay ku ridaayeen sanduuqay ku ridayeen dadka kaleetana shirar intay qabsadaan oday dhaqameedyada ayaa wakiil ka noqonaya imaanaya codkooda markaas ku dhiibayay meesha ay rabaan waxaa marka shirkaas doorashadii waxaa la qabtay bishii February 1959 waxaa natiijada inay noqotay in 71% ay SYL ku guuleysato oo 43 kursi heshay qolada ku xigtay oo HDM Said ama xisbiyada ahayna 13 ay heshay qolooyin isu tagtay Somali Democratic Party leedana 3 bay heleen waxaa iyadana markaas jirtay waqtigaas waxay ahayd waqti qof walba magacu rabo xisbiga oo la bixi karo qola la yiraahdo Mareexaan Union ayaa iyagana hal kursi ka helay saasa marka
lixdankii ku Soomaaliya dhinaca ka imaanayay ay ku buuxsameen maanta waxa ka dhashay marka golihii in uu noqdo marka gole gobol xaar u noqda xorriyaddii Soomaaliya marka ay qaadato 4 sano kadib baarlamaanka uu noqon lahaa gobol xaarkii uu noqon lahaa marka dowladdii baa waxa la sameeyay dowladdii baa la dhisay waxaana dowladdaasi ka koobneed 5 wasaaradood ay ka koobneed marka ayagaas hawlgeli doona ilaa iyo shaqooyinka ugu horreeya marka ay qabteen waxay ahayd inay diyaar gareeyaan doorashadii ku xigtay oo ahayd 1958 oo doorashadaasna ahayd marka doorashadii deegaanka marka la tahay waxaa intaan doorashada la gelin waxyaabaha oo soo kordhay waxay ahayd in laga fakaro dastuurka laga fakaro marka guddiyaha la sameeyay xisbiyadii laba xisbi qaar baa isku darsoomay waxay maxaan ku rahdaa SYL gudaheeda ayaa wax ka dhaceen ninkii madaxweynaha ka ahaa SYL ayaa maxaan ku rahdaa laga saaray SYL laga saaray waxa uuna samaystay marka xisbi gaar ah oo la yiraahdo gareedka la yiraahdo ayuu samaystay iyadoo intaasii jirto ayaa marka doorashadii la galay doorashada waxaa tirada badnayd oo ay ku galeen sanadkii ka horreeyay ku galeen ay hoos uga soo dhacday 5 xisbi ayaa maxaan ku rahdaa ka soo horjeeday SYL ka soo horjeeday waxaa laakiin muxuu ahaa waxaa maxaan ku rahdaa la joojiyey magacyadii loola baxayay qabiilka ahaa ee xisbiyada loo bixinaya la joojiyey xisbigii loola jeedo marka xisbiga digil marfla loola jiray wuxuu isu bedelay xisbiya dastuur mustaqil Soomaaliya ayuu isu bedelay maxaan ku rahdaa waxaa iyadana ururo kale tooshan ahaana way isu tageen hal urur bay isugu tageen 1958 marka doorashooyinkii deegaanka oo la qabtay waxaa 663 kuraas ayaa lagu tartamayay 416 waxaa helay SYL baa heshay halkaasna 63 ayaa codkii heshay waxaa ku xigtay HDMS ama xisbiya ku xigtay xisbiyana waxay heshay 26 gradekiina wuxuu helay 36 ayuu helay oo 5 u dhiganta maartay xisbiyadana waxay heshay 175 saan soo sheegnay Liberal Party baa isla jiray oo ay isaga helay 27 waxaa loo gudbay marka doorashooyinka deegaanka markay dhamaatay doorashada ku xigtay marka waxay ahayd doorashada loogu talagalay mar labaad haddana in maxaan ku rahdaa golihii majliskii maanta oo baarlamaanka oo kaleeta ahaa oo bilowgii lasoo bilaabay 56 lasoo bilaabay in bal marka kan isagoo ballaaran la sameeyo waxa ugu weyn oo isbedelka dhacay waxay ahayd kii horeeto wuxuu ahaa 70 oo 60 ka mid ah Soomaali leedahay midka kan marka waxaa laga dhigay 90 kaba waxaa wada qaatay Soomaali baa wada qaadatay Soomaali baa iska lahayd waxaana la siiyay marka in muddo 5 sano inuu jiro maanta doorashadaas waxaa la qabtay 8 Maarso 1959 waxaa marka waayadaas iskhilaaf xoog leh ayaa waxa ka dhacay muxuu ahaa xisbiga gudihiisa dowladdii dhalatay dowladdii daakhiliyada ahayd iyo axsaabtiina xoogaa isfahmwaa badan baa ka dhex dhashay waxaa markaa dhacay colaad baa dhacday colaadaasi oo maxaan ku rahdaa gacan ka hadal gaartay waxaa la xirxiray marka qaar ka mid ah madaxdii xisbiyada ayaa la xiray marka xisbiyadii iyo gareedka labadaba waxay go'aan ku gaareen inayna ka qayb galin doorashadii 59 halkaas ay qaadaceen taas waxay saameyn ku yeelatay marka natiijadii ka soo baxday doorashada ka soo baxday doorashada marka 83 kursi ayay qaadatay SYL inkastoo xisbiya ay diiday inay ka qayb gasho dad ka mid ah iyaga ayaa doorashada isu taagay 5 kursi bay ka heleen Liberal Party-gana wuxuu helay 2 helay marka waa golahaasi golaha hadhowta dambeeto dowladda maxaan ku rahdaa gacanta ku qaban doona waxaana ka dhiman sanad kadibna waxa la geli doonaa maxaan ku rahdaa waqtigii xorriyadda ayaa la geli doonaa maanta waxaa
bishii Luulyo 1960kii waxaa isku darsoomay qaybtii kore ee waqooyiga ahayd ee qaybtii koonfurta Soomaaliya oo qaybta Somaliland ahayd Ingiriisku gumaysanayay iyo Talyaaniga isku darsoomay intaan markaa isku darsoomin ka hor 1960kii waxaa iyadana doorasho lagu qabtay waqooyiga lagu qabtay waqooyiga markaas wuxuu lahaa saddex xisbiyo waaweyn buu lahaa SNL oo 20 kursi heshay USP oo 12 kursi heshay iyo NUF oo 1 kursi heshay halkaasna waxay ahaayeen markaa 33 kursi ayaa xagga ka timid iyo maxaan ku raahdaa halka kan noocyadana 9 ahayd marka la isku daro waxay isku noqon doonaan marka 123 xildhibaan ayaa barlamaankii xortaha u noqday maartay waxaa barlamaankaasi shaqooyinkiisu horeeyay oo qabtay kamid ahayd inuu doorto madaxweynihii dalka inuu doorto bishii July oo xorriyadda la helay koodii xorriyadda la qaatay 5 bari kadib waxaa la doortay madaxweynihii dalka oo loo doortay Aadan Cabdulle Cusmaan oo markaasi ahaa qofkii barlamaankii dakhliga ahaa madaxda ka ahaa wuxuu warsaday marka Cabdirashiid Cali Sharmaarke inuu soo dhiso dowlad soo dhiso dowladii maxaan ku raahdaa waxaana loo gooyay inayna ka badan 12 ka badan Cabdirashiid waxa uu keenay 15 buu keenay waa lagu dhashay markii labaad buu soo habeeyay 12 على حالة كجرنا يمكن لفيريو برلمان عجيب وها مركاسي بين هذا اللبي توم كبر من ذلك ما بخاري كرو يلا صدق شنو يلا قبل ذي اللبي توم هل كان الدولة دي بدنا نبي لعبتي وحلا قلي الشغوين بحلا قلي يكون استقال بقول إحنا أفرتي أمريكا وحلا قلي دور الشدي أنت الحرية الحين تي أقول رئيسية أو اللوجر وبرلمان كدور شوي كبرلمان waxaa marka iyadana ka horeeyay marka xaaladaha doorashadaasi ka hor dhacay ilaa 60 ilaa 64 waxaa kamid ah in 61kii la qabtay afti la qabtay oo dastuurka loo geliyay ma taqaana dastuurka afti la geliyay waxaa waxaan ku raahdaa ra'iisul wasaarihii Somaliland ka yimid oo isagana markii ku jiray waxaan ku raahdaa dawladii ku jiray oo iscasilay 1963 waxa uu samaystay waxa uu hormuud ka ahaa xisbi cusub oo la yiraahdo Somali National Congress ama SNC la yiraahdo طبعا waxa qoladii grade-ka ahaydna xisbigooda markaas waa uu jiray maartay 1964 doorashadii ka soo baxday waxa la qabtay 30 Maars la qabtay waxaa ku tartamay 22 xisbi oo ku tartamtay 973 qofna way soo sharaxeen inay barlamaankaas 123 ah ay soo galaan maartay soo sharaxeen natiijadu waxay noqotay SYL oo ku guuleysatay 69 kursi SNC oo ah xisbigii ka yimid maxaan ku raahdaa waqooyiga ka yimid iyo qolo ka soo gooday maxaan ku raahdaa SYL ka soo gooday oo isku darsoomay oo iyagana ku guuleystay 22 kursi ku guuleystay SDU oo iyadana 15 qaadatay xisbiyo iyadana qaadatay 9 kuwa yaryarna ay xogaa 8 ay ku soo xigtay marka 64tii doorashadaasi marka ay soo baxday ra'iisul wasaarihii markaasi jiray Cabdirashiid oo soo waday markii xorriyadda la qaatay ilaa 64 laguma soo celinin waxa uu madaxweynihii oo Aadan Cabdulle ahaa oo marka kan magacaabay Cabdisaaq Xaaji Xuseen ayuu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub isagana waxa uu geeyay barlamaanku wuxuu geeyay maxaan ku raahdaa golihiisii uu geeyay oo la ogolaaday Cabdisaaq wuxuu caan ku noqday inuu waxa ka bedelo qaabkii maamulka dawladda uu ka bedelo waxyaabo badan oo tiro badan inuu ka bedelo inuu dad badan ruqseeyo sidaasina waxa la doofka lagu siin jiray barshad guduudan Talyaaniga lagu yiraahdo boosta waa barshad rossana waxa gudub barshadii guduudnayd ayuu caan ku noqday oo dadka dhigi jiray shaqadii waa laga sii daayay waa iyadoo la dhalinayo wax qabadkiisa maanta waa weynaa
waxaa doorashadii ku xigtay markaas ay ahayd doorashadii 1969 waxyaabaha marka muddadii u dhaxaysay labada doorasho u dhaxaysay oo dhacay oo intaan doorashadaasi la gelinna saameyn ku yeeshay waxaa ka mid ahaa in 1966 waxaa soo galay baarlamaankii qofkii guddoomiyaha ka ahaa ayaa laga saaray SYL laga saaray marka waxaa meesha soo galay in caan noqon doono la yiraahdo Sheekh Mukhtaar la yiraahdo ayaa guddoomiye ka noqday cigaalna wuxuu kusoo biiray maxaan ku radaa SYL ayuu kusoo biiray bishii June waxaa dhacay waxaa waqtiga ka dhacay madaxweynihii markaas joogay oo ahaa Aadan Cabdullaahi waxay tartameen marka isaga iyo waxaa tartamay Sheekh Cali Jimcaale isaga ku guuleystay marka uu soo noqday isaga iyo waxaa tartamay iyo Cabdirashiid Cali Sharmarke oo u ahaan jiray wasaare u ahaan jiray waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa ku guuleystay Cabdirashiidna waxa uu magacaabay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayuu magacaabay ra'iisul wasaare inuu dalka noqdo arrintaas markay dhacday cabdirasaaq oo magac weyn ku lahaa SYL ku lahaa guddoomiye ka soo noqday xogeeye guud ka soo noqday waxa uu ka baxay xisbiga SYL waxaana uu furtay xisbi cusub oo la yiraahdo Somali Action Party la yiraahdo xisbigaas oo Soomaalidana caan ku noqday oo la yiraahdo dabka la dhihi jiray maanta doorashadaasi 64 xisbi ayaa soo taagay in ka badan 2,000 oo qofna waxay dabacday in ay marka ka soo biirto siyaasadda ku soo biirto maanta dabcan muxuu ahaa 48 meel ayaa laga codeynayay oo maanta dadku ay kuraasta ku soo dooranayeen 5 ka mid ah lagulama tartamin SYL natiijadii waxay noqotay 73 kursi waxaa heshay SYL 11 SNC baa heshay 3 waxaa heshay xisbiya heshay maanta markaad fiiriso boqolkiiba 60 waxay ahaayeen dad cusub dadkii baarlamaanka soo galay laakiin baarlamaanka 73 marka laga jaro 123 waxaa heshay maxaan ku rahdaa waxaa heshay SYL baa heshay kontonkii soo harayna hal qof marka laga reebo cabdirasaaq ahmanintooda kale waxay ku biireen maxaan ku rahdaa SYL bay ku biireen oo dowladda maxaan ku rahdaa gacanta ku haysay marka qof walba guri waxaa ka galay inuu wax ka noqdo cigaal ayaa mar labaad dara noqday maxaan ku rahdaa waxa uu formgareeyay waxa uu dhisay gole ka kooban 15 ka kooban laakiin nasiib darro maarso ayay ahayd markii doorashadii dhacaysay bishii oktoobarna 15keediina madaxweynaha isagoo wareega dalka wareegaya ayaa maxaan ku rahdaa la dilay waxaana dalka la wareegay maxaan ku rahdaa waxaa la wareegay military baa la wareegay now waxaan rabaa marka inaan soo koobo intii aan hadda soo dulmarnay waxaan haddaad fiiriso xisbiyada siyaasadeed oo soo jiray waxaa yaraa waqtiyada ay noolaayeen ayaa yaraa xoogaa yar muraadka laga lahaana wuxuu ahaa muraad ah in ay doorashada ku galaan dadka samaysanaya labada ugu adkaysiga badnaa waxay ahaayeen SYL iyo xisbiye ahaayeen kuwo kaloo iyagana ahmiyad yeeshay waxaa ka mid ah SNC-da iyo STU-da guud ahaan haddaad fiiriso doorashooyinka dalka ka dhacayay waxay ahaayeen 8 doorasho ahaayeen oo 5 ka mid ah ku saabsanaayeen baarlamaanka ku saabsanaayeen maartay iyo majliskii ka horreeyay 1969kii waxay ahayd markii ugu horreysay oo la isku daro hal mar la wada qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo doorashooyinka deegaanka ayaa hal mar la isku daray inta kale waa la kala qaadqaadayay maartay markaad fiiriso SYL waxay ahayd xisbiga xisbul xaakimka xisbiga la yiraahdo 56 maxaan ku rahdaa ahaa
xisbiga dalka gacanta ku hayay 1969 markii la gaaray waxa uu noqday markaad fiiriso 123 ku jirtay baarlamaanka ku jirtay markaad fiiriso hal maahan intooda kale ay meel isku tageen oo xisbigaas wuxuu noqday xisbi kaliya oo dalka ka taliya maanta ayuu noqday waxyaabahan hadda aan soo jeedinayno waxaan isku dayay inaan soo aruuriyo waxyaabo facts ah maxfaalla ah iyo isbarbardhig iyo wax badan ma guda gelin maartay ujeedadana waxay tahay in waxaan qiyaasayo dad badan oo dhalinyaro ah inay ku jiraan markaasna aan leenahay bal maxaa facts oo jira mataqaanaa ururintooda hal meel ku urursan in oo la soo koobay inaan aan dhexdhigno marka waxaan rajaynayaa intaasi inay noo suuragelisa inaan xogaa discussion aan ka samayno afkaartiinaan kolley dikaashinto almasanta xasan wasiir waa mahadsantahay runtii aad kaa mahadcelinaya in taariikh dheer aad waqti yaro kooban noogu soo kortay waxaan rabaa inta aan su-aalaha u gudbin ka qaybgalayaasha inaan mid xusuusiyo qofkii su-aal qaba weydiin karaa wasiirka adigoo aadan mawduuca ka dhex bixin waqtigana nala ilaalinaya waxaad samayn kartaa gacanta taagan kartaa kadibna anigaa kugu wacayo mikrofoonka waa lagu siinaa wasiirkana toosaa su-aal u weydiinaysaa marka waxaan kaloo rabaa inaad xusuusiyo muxaadarooyinkan taxanay noo yihiin caawa midana bilow ah doorashooyinkii tooska ahay dhacay kadib waxaa imaan doona doorashooyinkii dadbanaa way noo socon doonaan marka caawa waxaan ku jirnaa midii koowaad taas xusuusnaada inay taxanan yihiin oo noo sii socon doonaan wasiir inta ka qaybgalayaasha ay gacanta taaganaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal inaan weydiiyo midda koowaad waxay tahay markaa fiirisid doorashooyinkii dhacay misala 56 oo kale markay ahayd dadka loo ogolaa inay cod ka dhiibtaan kuma jirin dhalinyarada qaangaarka iyo haweenka maysan lahayn xuquuq ay ku codeeyaan markaa fiirisid 59 oo kale markaa fiirisid waxaa la yiri dhalinyarada ama dadka qaangaarka way codeyn karaan taas waa mid xogaa wax yar bal sii faahfaahi dadkii loo ogolaa inay codeyn karaan wax yar dul istaag midda kale waxaan kaloo rabaa inaan fiiriyo 69 oo kale doorashooyinka dhacay waxyaabo badan waxaa jira layaab laa dhacay dhacdooyin layaab leh oo taariikhda Soomaalidu u galaa dhacay dadka badanaa siyaasadda Soomaaliya aad yani u falanqeeyeen waxay leeyihiin doorashadii ugu xumeed abad taariikhda Soomaalida soo martay 69 wixii dhacay iyo natiijadii ka timid dhinaca kale marka la fiiriyo waxyaabo badan oo lagu xusuusan karaa jirta oo ahayd in gabar la yiraahdo Xaawo Yarey in ay isku soo sharaxday kursigii baarlamaan ay yaalay Ceelbuur ayadana waxaa la taariikhda waa markii ugu horeysay gabar Soomaaliyeed ay isku dayday inay kursi xildhibaannimo raadiso haddana de waaba la socotaa dhowr 50 sano kadib waa la socotaa in maanta gabdhaha qoondadooda 30 ay marayaan oo gabdho badan oo xildhibaana maanta baarlamaanka inoogu jiraan laakiin taariikhda xilli waxaa jira 69 in gabadhii ugu horeysay ayadoo narsina macnaha ayadoo meel isbitaal martiina ka shaqaynaysa oo shaqaysanaysa inay shaqada ka soo tagtay ay kursi Ceelbuur yaa la raasatay tolki shiraaya dhawr talo codkiina si ama soo saartay marka taariikh weyn ay ahayd bal arrintaas ayadana dul istaag doorashada 69kii gaar ahaan gabadhii ii sheeg Xaawo Yarey arrinkeeda wax yar dul istaag iyo tii oo ahayd 56dii dadka xaq u lahaa inay codeeyaan marka taas waa mid waaye hoos ka xariiqo waxaan u gudbaa ka qaybgalayaashan u gudbaa kadibna waan fiirinaa dadka ay gacanta u taagan yihiin qofkii raba inuu su-aal weydiiyo wasiir gacanta u taagan karaa laba saddex wasiir waxaan rabaa inaan su-aalaha hal mar isdaba dhigo oo 3 3 iyo 2 2 iyo 5 aan isku raacsiino okay اوكي عبد احمد وجيدا عبد سودو اسكا ميكروفونك اسكفر السلام عليكم حسن وعليكم السلام ورحمه الله معك هبد iyo لو دقيقه معك هبد iyo umahad celina wasiir baafan oo umahad celina iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha wasiirka faahfaahin dheer oo nasiiyo waa ku mahadsan yahay waxaa lahaa
doorashadii 1969 dhibka Soomaaliya haystay ayadaa sababtaa lahaa markii la fiiriyo musuqmaasuqa dhacay iyo dhibkii halqabsi waxaa jira mahmaa oo maxamed xaaji ibraahin cigaal dhuusa mareebkiiriyo ciidinku qaybsada biseel iskuma cooriyo iyo dhacdooyin badan oo xataa dad badan ku dhinteen bil 2 bil ka hor buug aqriyo qoray jaamac maxamed qaalib oo ahay taliyaha ciidanka ee waqooyi galbeed xilligaas wuxuu yidhi markii laga reebo hal kursi oo hargeyso inta kale Israa'iil qaadatay oo welibana ay ka mid tahay 5 kursi oo ka soo gashay magaalada Burco marka ma la dhihi karaa inay askarta afgambi suubiyaan madaxweynihii la dilo ilaa iyo maanta 50 sano doorashadaas oo xaqa aan ahayn oo qalad ku dhacay u sabab ahayd ma la dhihi karaa dhibka Soomaalida soo gaaray asalka mushkiladana meeshaas ma laga soo bilaabi karaa waa mahadsantahay wasiir okay adiga mudan Cabdi Axmed wasiir soo dhawow waxaan ku hayaa 2 su'aal oo aniga aan ku weydiiyay su'aasha Cabdi Axmed su'aalaha kale oo soo laabanaya ay okay soo dhawow wasiir horta aniga hadda waxaan ahay qof darsaya oo hadda baranaya mawduuca hadda aan ka hadlayay maartay ma ka ohi khabiir matqana hadda war fiican idinka siin kara maartay maahi waxaan jeclaan lahaa waxaan isku dayay markeenan wax facts kaliya daatooyin jira kaliya inaan idinla wadaago laakiin waxay la tahay xagga maxaan ku raahdaa da'da iyo dumarka labadaba waxaa qaabka doorashada loo galay waxaa laga dhigay labo mid dadka magaalooyinka ay toos ugu ridayaan iyadaasi waxay ka koreysay maxaan ku raahdaa midda dadka loo ogolaa miyiga jooga dadka jooga waxaa loo ogolaa shir baa la wada imaan shirkaa la isugu yeeray shirkan waxaa loo ogolaa qof kasta oo imaan karo dhalinyaro xataa uu ka qayb galay codkiisana waa la tirinaya laakiin magaalada markay tahay magaalada waxaa laga dhigay da'daasi 21 laga dhigay dumarkana tii horeeto 54 maxaan ku raahdaa kama ina qayb galin laakiin 56 way markay ka soo qayb galayaan maxtadaan hadda aan khaldanayn marka loo ogolaanayo dumarka inay sameeyaan codkooda ay dhiibtaan intaasina waa waxa weeye koonfurta weeye maartay markaad waqooyiga tiraahdo maba aynan مثلا ما أنا كلام لا لحد يكودي مركز لسكو درسونا كذب هي برلمانكي ومحمد هذا قرقوا لها هي قامية إن كغيب قال كدمر كاي محمد هذا عدكوا دي بكرة وغوينا لو صوت لما كوي كذب بينا وقال كذب بينا والقياس كرتا دمر كاي السوشيال راح هي waxyaabaha u baahan weeyaan malaynaa daraasadka u baahan ma taqaanaa waxaan aad loo yaqaanaa xawaa loo yaqaanaa xawiir la yaqaanaa iyadana kuma inaan guulaysanin ma ayna soo gelin waxaan ku raahdaa marka laga yaabo in dad maxaan ku raahdaa xog ka hayn kara inay jireen dumar kaleeto ay damcay ama maxaan ku raahdaa intiina sharxi ka haray oo waxyaabaha u baahan in la darso u baahan taasina intaas haddaan kaga baxo midda maxaan ku raahdaa dad badan baa qabay in 1969 wixii dhacay dowladdaas waxaa aad loogu eedeeyay musuqmaasuq fara badan yacni dowladdii oo dirshiid madaxweynaha ka ahaa cigaal ka ahaa ra-iisul wasaaraha ka ahaa waxaa aad loogu eedeeyay musuqmaasuq tiro badan baa lagu eedeeyey waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in taasi ay dhalisay in xukunka ay la wareegaan militariga ay la wareegaan haddaa xusato militari markay xukunka la wareegeen magaalada xamar gaar ahaan barnaamijyo oo aan lagu talagelin oo waxaa jira dadka ay yimaadeen suuqa ay usoo dhaadhaceen oo ay ku taageerayaan iyagoo caleemo qoyan ruxaya mataqaanaa taasina waxaa loo fasirayay in khaati laga joogay maamulkii markaas meesha jiray mataqaanaa laga
laakiin iyada laftirkeeda waxaan isleeyahay waa waxyaabaha u baahan daraasaadka kaleeto u baahan maaragtay dheeraadka ah. Okay, wasiir aad u mahadsantahay. Waxaan kaloo rabay su'aal kale inaan aniga aan ku darsado kadibna waxaan u gudbinaa qaybgalayaasha. Su'aasha kale waxay tahay markaa fiirisid doorashooyinkii magaalooyinka ka dhacay gaar ahaan xamar oo kale inta badan kuraasta waa ku yaraayeen mar hal kursi la dhiga mar kale waa 29 u maleynaa in 2 kursi la dhigo oo 2 looga dhigo macnaha marka hore waa lagu yareeyay kadibna kursi kale loogu daray labadeena kadib marka ugu dambeysay SWL aad isku qaadatay aan SWL xisbi kale mucaarad ma kala qaato ma garanayo laakiin gudahan meesha u socday waxa waaye xamar oo markaa fiirisid dadka ku noolaa tir ahaan inta codeyn karta ay aad u badnaayeen maxaa keenay in kuraasta lagu yareeyo oo kuraas yar la dhig ilaa haddana waa la socotaa maqaamkeedii iyo waxa ay kuraasteedii dadka degan ilaa hadda xitaa calaamad su'aal dul saaran maadaama dad badan ay degan yihiin matalaaddeedana waa ku yartahay kuraasteedana wax la yiraahdo ii sheeg ma lahan marka taariikheyn xilligaas 19 doorashooyinka dhacayeen laftigeeda xitaa matalaad yani kuma lahayn kuraas badan iyo matalaad kuma lahayn marka maxaa sababay maadaama magaalada ugu dadka badan ay tahay haddana in ay wax la yiraahdo kuraasta lagu yareeyo soo dhow wasiir kadib waxaan u gudbinaa waa su'aal weyn oo meesha ku jirta ay markaad fiiriso maxaan ku radaa qoraalada la samaynayo markaad fiiriso tan iyo waqtigaas wax laga qoraayo ay dadkii cilmi baarista samaynayay ma aynan jeesan arrintaas jawaab inay ka bixiyaan laakiin waxaan meelaha qaarkood lagu tilmaamayay in dheelitirna la samaynayo mataqaanaa waxyaabo badan la samaynayo waxaan u malaynayaa waxyaabaha u baahan iyadana in dib loogu noqdo oo la darso u baahan aniga jawaab cad kuma hayo mataqaana ma ka jawaabi karo okay wasiir aad waa mahadsantahay weli waxaa waa ka qaybgalayaasha waxaan u maleynayaa ma mawduucaysan weli fahansaneen macnaha gacantaaga waa yar yahay su'aalaha waa yar yahay laakiin aniga okay cabdiqaadir dubad gacanta u taagan cabdiqaadir aan siinaa kadibna aniga hal su'aal daba dhigana wasiirkay cabdiqaadir soo dhawow cabdiqaadir كفر ميكروفونك كفر سودو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومحسنتهي ما شاء الله أستاذ حسن iyo maaragtay hibaad waa idin salaamaya martidana aad baan u salaamaya ma sha Allah wasiir Bafo aniga waxaan rabaa waa ay maqashaa Soomaan caadi arrimaha doorashada midda koowaad su'aasha koowaad qabo waxa waayo laba khilaaf oo waxa jiro inta badan lagu xuso taariikhda oo in macnaha dhibaatooyinka iyo problemka Soomaaliya inuu halka ka soo bilowday maaragtay lagu tilmaamo khilaafka koowaad wuxuu ahaa mid dhacay 1958 dabcan waad xustaa maleenahay halkayga waa ku xustay oo ahaa in Xaaji Maxamed Xuseen oo markaa ahaa maaragtay madaxweynaha xisbiga SWL inuu faragelin ku sameeyay hawlihii xukuumadda ayadoo maaragtay madaxii xisbiga iyo maxaan ku raahdaa gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka dibadiisa ku maqnaayeen marka taa khilaafka ma la dhihi karaa arrimaha doorashooyinka ee 59 iyo wixii ka dambeeyay wixii dhacayba wuxuu saameyn weyn ku lahaa khilaafka labaadna wuxuu ahaa saan jeclahay buugan ka akhriyay oo qornin dhalinyar ah oo sooyaalka Soomaaliyeed maaragtay ugu sheekeynayo marka wuxuu ahaa in wasiirkii koowaad ee xukuumadda dakhliga Cabdullaahi Ciise iyo maaragtay wasiirkii arrimaha gudaha Xaaji Muuse Boqor ay isqabteen 59kii ayadana ay keentay in wasiirkii arrimaha gudaha marka xilkii iska casilo marka labadaas khilaaf oo SWL gudaheeda aad u saameeyay maxay saameyn ku yeesheen arrimihii siyaasadda iyo doorashooyinkii wixii inta ka dambeeyay dhacay taas waa su'aasheeda koowaad midda labaad ilaha 8 doorasho ee aad soo xustay kuwii golaha deegaanka iyo kuwii baarlamaanka caadiga maxaa cashiro laga baran karaa si guud marka aad isku soo duubtaa isleedahay oo hadda inkastoo de contextiga iyo xaaladda isbedeshay laakiin maxaa laga baran karaa cashira waa mahadsantahay
cabdiqaadir waa mahadsantahay su-aal muhiim waa su-aasha dambe waa runtii aaday muhiim u tahay casharada laga baran karo okay wasiir waxaan rabay in anigan aan daba raacsado su-aalkan aan daba dhigto intii aan akrinayay qoraalada laga sameeyey doorashooyinkii waddan ka dhacay xilliyada hore waxyaabaha la yaab kale aan ku arko waxaa ka mid ah inta jeero doorashooyinka ay soo dhacayeen ayadoo aan laba shayba la qeexin si fiican loo qeexin ama si fiican looga jawaabin in dalka doorasho u galayo midda koowaad waxay ahayd ayadoo aan tirokoob la sameynin oo bulshada Soomaaliyeed aan tirokoob lagu sameynin ayaa doorashooyin la galay midda labaadna waxay ahayd ayadoo aan la qeexin xuduudda deegaan doorasho ayaa doorashada la aadaya ilaa haddana waana daba taagantahay labadii guri waa taagan marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saameynta arrintaas ay ku leedahay in ay yacni doorashooyin oo macnaha ii sheeg wax ku ola waddanka ay ka dhaceen ama wax la yidhaha arrintaas bal wax yar ka hadal ka sheekay dhowaa masanta horta I think waa iska sheekeysanaynaa maxaa jira wax ay su-aalahan cilmiga ah oo aad u qotada dheer waa waxyaabo maxaan ku rahdaa weli la iswarsanaya qaarkood oo dadkii goobjooga ahaa wixii laga heli karaan haddaba aan warwarsanno maaragtay qoraalladana kuma jiraan oo maaragtay meelo badan laguma qorin nasiib darro maxaan ku rahdaa waqti dhan oo wax badan laga qori karay ayaan waxba laga qorin maaragtay marka haddaan ku noqdo perhaps taadaan ka bilaabayaa mataqaanaa tirakoobka waa la tilmaamaa laakiin xuduudaha maaragtay ma arkin aniga iyadoo laga hadlaayo oo laleeyahay shaki la gelinayo ma aan arkin laakiin tirakoob la-aanta waa laga hadlay waana mushkil waxay mar walba soo taagan waxayna dhalisay khilaafka waxay dhalisay maxaan ku konton iyo sagaalkii markii doorashadii la gelayay islaan qolada ku adkeysanaysa waxaa ka mid ahayd xisbiyaa ka mid ahayd dhahaysay mataqaanaa halis tiriyo maaragtay aadna ugu adkeysanaysa maaragtay laakiin xagga xuduudaha wax isku qabanayo kumaan arkin literatureka kumaan arkin midda kaleeto xaaji maxamed xuseen iyo xisbiga طبعا waxaa khilaafaadkooda wuxuu ahaa khilaafaad siyaasadeed buu ahaa siyaasadeed marka la mowqifka xisbiga uu ka qaatay iyo sida uu la dhaqmayo talyaaniga ula dhaqmayo waa la isku dagaalay markii dambeetana xaajiga waa tii maxaan ku dhahdaa uu aaday maxaan ku dhahdaa waxbarasho uu aaday isagoo waxbarashada ku maqanna maxaan ku dhahdaa mar kaleeta dib loo doortay markii labaad la doortay oo qolo dhan baa isna ra'yigiisa wixiisa la qabtay markaas dambe oo la doortay waxa uu isu haystay inuu yahay xisbiga dowladda dakhliga ay dhalatay inay tahay dowlad ka dhalatay SYL ka dhalatay markaasna SYL madaxdeedana ay tahay inay wax ka ogaadaan dowladda iyo siday u dhaqmayso iyo waxyaabaha ay wato waxyaabahaas marka waxyaabihii la isku qabtayna waa ka mid ahayd mar labaad maxaan ku rahdaa I think waxay noqonaysaa wax u baahan raadin mataqaana u baahan qodobka saddexaad oo ahaa maxaa laga baran karaa maaragtay waxyaaba badan laga baran karaa laakiin aniga waxay la tahay waxa ugu weyn waxa weeye xisbigii SYL yani mar alla markii la soo gaaray maxaan ku rahdaa khilaafaadkiisu waxay bilowdeenba kontomayadiiba khilaafaadku waa bilowdeen markii talyaanigu la wareegay khilaafaadka hore ka bilowdeen maaragtay marba meel bay soo taagneed ilaa aakhirkii markii lasoo maxaan ku rahdaa daakhiliyada la helay xukunkii la isku qabsaday mataqaana waa marka maxaan ku rahdaa dad badan oo shalay markaad ahayd xisbi mucaarad oo banaanka taagno talyaaniga kasoo jeedo iyo markaad noqoto xisbigii dalka maamulayay laba waxyaabood bay kala yihiin waxaa awood baa la isku qabtay aaraa baa la isku qabtay marka waxayna soo socotay ilaa iyo dhammaadkii soo socotay markii dambeetana darsiga ugu weyn aniga waxay tahay malaynaa siyaasadda haddii ay noqoto mid loo galo in lagu maaleysto in mansabkaasi lagaga faa'iidaysto
waxay dhalin kartaa oo keliya waxa weeye isqa qabsi iyo khilaaf bay dhalin kartaa midda kaleeto oo u baahan in iyadana darsiga laga qaadanayo waxa weeye SYL markaad aragto madaxdeedii sidii u dhaqantay waxaa iyo dastuurku siduu u qurxoonaa iyo xeerarkii jiray nidaamkii jiray waxaa iyadana ku cad meeshaas waxa weeye dastuurka xaashi buu noqonayaa hay-adaha jiraanna hay-ado waxay noqonayaan ayagana aan awood lahayn haddii siyaasiyiinta madaxda ah ama hoggaanka uusan daacad ka ahayn horumarinta dalka uusan ka ahayn atin kuwaas waa weyn aan isleeyahay oo laga korsan karaa okay wasiir waa mahadsantahay su-aal qoraal ah waxaan soo weydiiyey Cumar Xeele wuxuu leeyahay aniga 60 sano waan ka weynaa da'deeda magaaladan Xamar aan soo koray weligeena fursad uma helay inaan codeeyo marka yani generationkan hadda soo kacayo dhalinyarada u badan waa ila mid oo weligeed fursad uma arkin inay codeeyaan marka su-aashiis waxay tahay aniga iyo inta ila midka maxay doorasho ka garan karaan yani in ay akhriyaan mooyaane maxay doorasho macnaheeda ka fahmi karaan waxaan maleynayaa su-aasha inay tahay su-aal iska yani guud inay tahay marka su-aashaas qoraalkaa noo haya okay marka wasiir soo dhawo أنا وحلا تعرضوا إلا عذيا واحد ورنتي سوي فرصة سنة ودن معنا الهلين ما عرفت وأنا محمد هذا ودم وين ولا قال جيل كان ولا قال هدي لك هذا اللون غاضر شيء اللي هذا وحدا كيسا كنت نسد حدي وحير كنت محمد هذا اللي دجي ما تدور شده كنت أنا أفرتين دور شيء ولا قال ذاتك وقت جاء جوجي هوري كلا خمسة ذي المتقنع wax dhib badan ma ahan waa wax maxaan ku raahdaa sida loo codeynayo iyo laakiin waxa ka daran waxa weeye codka ujeedadiisa waxay tahay in lagu doorto dad wax hagaajiya hadii taasaan malaynayo inay tahay mid ugu dhibka badan maanta marka hanaanka wax loo dooranayo iyo waxa ka daran maanta biseelka siyaasadeed iyo ujeedada siyaasadeed iyo maxaan ku raahdaa waxay ka tarjumayaan dadka madaxda xisbiyada ka noqonaya iyo hoggaanka dalka dadka qabanaya kuwaas way kuwaan aan u baahnahay inaan inta ka fariisano aan ka sheekaysano waa mahadsantahay hal mar ka qaybgalayaasha wax yar aan maskaxdooda cusboonaysiiyo muxaadaro ciwaankeedu yahay taariikhda doorashooyinkii waddankan ka soo dhacay intii u dhaxaysay 1954 kasoo bilaab ilaa iyo 69 doorashooyinka dhacay ayuu ka sheekeynayaa wuxuuna nala wadaagay macluumaad xaqiiqo ah oo aan aragti keliya aan ahayn oo xaqiiqaagina soo dhawaada su-aalihiinana meeshaas ha u bataan yani doorashooyinka laga dhex bixin waxaan u jeedaa qofaa gacanta taaganaya maxamed isaaq maxamed soo dhawow 2 daqiiqa haystaa soo koob waa mahadsantihiin dhammaantiina ustaadka iyo machadka hibaad su-aasha aan qabo waxay tahay ustaad doorashooyinka dhacayeen ma la dhihi karaa yani badankooda kuma salaysanayn yani transparency ama sinaan tusaale 54 oo kale waxaan aragnay in xisbiga SDM ama xisbiya ay codad badan heshay kii labaadna inaan codad kii hore aanan u dhigmin ama 90% ka yar ay heshay dhanka kalena SYL 90% qaadatay yani cadaalad may ku saleysanayaan doorashooyinkaas mise waa marka waa mahadsantihiin maxamed waa mahadsantahay dhanka cadaaladda u maleynayo inay su-aashay dib ugu laabanayso si fiican ka mahadsantahay wasiir soo dhawow tiimka kale intay gacanta taaganayaan waa sugaynaa kusoo laabanayna soo dhawow wasiir horta doorashooyinkii maxaan ku rahdaa la qabanayay marka laga reebo doorashadii maxaan ku rahdaa 54 iyo 56 marka laga reebo inta kale oo dhan waxaa maamuleysay dowlad ay ka taliso SYL ay ka taliso waxaana dhammaantood ka imaanaya cabasha ka imaanaya waqtigaas laga bilaabo ilaa waqtigii maxaan ku rahdaa
dowladdii maxaan ku rahdaa rayidka ee ka dhacdo marka waa ma ahayn waa sax weeye doorashooyin sidii la rabay loo qabanayay ma ahayn absolutely okay waxaan soo gaarnay xilli waqtigii gabagabada ku soconaa intaan aan kugu wareejinin gabagabaynta daqiiqadaha dambe waxaan rabay inaan wax yar waxaa jira maskaxdayda ku jiro aan isweydiinayo okay intaan usoo laabanin su-aalahan isweydiinaya laba qofaa gacanta u taagan ayakaan hormariyo maxamed isaaq inaa kusoo laabato maarata maya walaal waa mahadsantiin laakiin iyadoo saas ay tahay waxaan rabaa inaan commenti kale ku darsado soo dhowo tusaale haddaan fiirino doorashooyinkaas kii 54kii 69kii iyo kuwii ka dambeeyeyba ilaa maanta la joogo oo hadda 21ka doorasho kale aan qaban doonno yani maxaa probability ah doorasho oo cadaalad ku salaysan la aamini karo legitimacy ah inay Soomaaliya ka dhacdo yani suurtagal ba sidaan hadda u jeedno doorashadii oo soo dhacday tii Koonfur Galbeed ha ahaato tii Jubbaland ha ahaato wax constituency oo la dhihi kar kama jiraan yani ilaa hadda mid soo socotan yani sida noo muuqato saadaash ilaaha og wax dhici doono laakiin yani ma muuqato saadaasheedii marka ka wasiir ahaan oo dawladdu ku soo jiri jirtay wax badan ka warhayso doorasho cadaalad ah oo ku salaysan yani si oo codbadni ah ama qof kasta kartidiisa wax ku helayo inay Soomaali ka dhacdo yani wadadeed ma lahaaya hadaynan lahaynin maxaa nala gudboon inaan sameeyno waxaan u maleynaa waa su'aal guud maxamed waa mahadsantahay okay iyo kaloo gacanta u taagnayd cabdiqaadir waa dejiyey okay marka saas sameeynaa maadaama qaybta gabagabada aan marayno waxaan rabnaa muxaadarada inaan hal mar inaan isku qaantaraan rabay gabagabayntii iyo su-aasha hadda ama faalada ugu dambeyso hadda aan la weydiinayo maxamed jawaabteedii iyo gabagabayntii inaan isku darsano soo dhowo Abdulqaadir dibad baa soo Abdulqaadir okay marka Abdulqaadir aan sii marka Abdulqaadir aan siina Abdulqaadir soo dhow codka iska fur waa mahadsantahay walaal xasan macnaha waan soo qoray as message aan kusoo qoray maad arag baan umaleynaya fariinta laakiin dhib ma lahan su-aasha waxay ahayd muhiimadeeda ugu weyn xisbiyadii markaa waddanka ka jiray laga soo bilaabo markii xorriyadda la qaatay oo 1960 ilaa 69kii macnaha maadaama xisbiyo badan ay jireen laakiin main party-gu oo ahaa SYL laakiin dhammaantood marka la isku daro xisbiyo oo national party ah oo dowladda ay qarashkooda bixisa ama dowladda ay fangareysay miyay ahaayeen mise xisbiyada noocay ahaayeen taasi ahayd su-aasheeda Cabdiqaadir waa mahadsantahay anigana su-aal kala raacsiisanaa marka magaca Cabdiqaadir ka ag dhowdahay doorashooyinkii waddanka ka dhacay faragelintii dowladda ka imaanaysa bal arrin faragelintii yani wadamadii daneynay iyo faragelintii kor ka imaanaysay ma jireen ma bal yani bal arrinkaas ha wax yar fiiri bal wasiir mahadsan faragelintii oo shisheeyaa mise shisheeya faragelin ma jirta doorashooyinkii dhacay ha right waxaan muxuu ahaa aan taada ka bilaabo si aan xusuusto faragelintu waxay ku badnayd waqtigii kontomeyadii bilowgii bay ku badnayd mataqaanaa iyo afartameyadii mataqaanaa talyaanigu aad u xiiseynayay in isagoo soo noqdo dadkiisa aruursanayay inta kaleeto maxaan ku rahdaa waa jireen mataqaanaa xisbiyo xiriir la leh maaragtay مثلا كون maxaan ku rahdaa wadamadii maxaan ku rahdaa shuuciga ah qaarkood xisbiya ay
scholarship ay siinayeen waxaasi waa jireen laakiin ma malaynayo in funds iyo waxaasi ay jireen waxyaaba u baahan maartay daraasaad ku baahan ka mid ah xagga ma malaynayo waqtigaas ma la soo gaarin xisbi walba isaga iswaday mataqaana xisbiga waa dad wax la siinaya lama arko laakiin xisbiga talada gacanta ku haya oo dawladda maxaan ku raahdaa gacanta ku haya mar walba waxaa lagu eedeynayay inuu isticmaalo hantida dawladda inuu isticmaalo maarta lagu eedeynayay maarta laakiin wax loo qoondeeyo oo la siinayo ma ayna jirin axsaabta la siinayo su-aasha kaleetana waxay ahayd tii guud bay ahayd aan u malaynayaa ma la heli karaa maarta doorasho cadaalad ku dhisan goorba ma la heli karaa dareenkeedii ma la hayaa aniga waxaan u malaynayaa nasiib darrada jirta waxay tahay markaad fiiriso hadda 20 sano waxaan ku jirnay inaan dowladnimadeena inaan dib u soo dhisno maarta carta laga soo bilaabay markaan carta ka soo bilowdo doorasho kastoo carta ku xigtayba waxay ka musuqmaasuq badnayd tii carta ka musuqmaasuq badnayd mid walba midda ka horreysay ka musuqmaasuq badnayd oo musuqmaasuq markaan leenahay waxa weeye waa cod la iibsanayo dad wax la kala siinayo iyo lacag shisheeye laga keenayo mataqaanaa oo banaanka ka imaanaysa marka dadku awoodda ay wax ku dooranayaan waxay si dhaba u imaan kartaa kaliya marka ay codkooda sanduuq ay ku ridan karaan maarta inta laga gaarayo 4 qof iyo 10 qof iyo 100 qof iyo waxay noqonayaan qaar maxaan ku raahdaa la wareejin kara maarta laakiin qofkii hadda wax hagaajin waaya haddii codkiisa berita la siiyana waxay u badan tahay inuusan waxba hagaajinin maarta marka waxaa qabaa hadda مثلا mid baan hadda ku jirnaa annaga waajibaadkana saaran waxay tahay inaan kulligeen isxasuusino dalkan inuusan ka baxayn xaaladda uu ku jiro haddaan la helin siyaasiyiin wanaagsan oo baarlamaanka gala baarlamaanka siyaasiyiinta wanaagsan markaan leenahay waxaan rabnaa siyaasiyiin dadka ay kala dooranayaan ku qiimeeya maxaan ku raahdaa fikradooda iyo siyaasadooda iyo si ay daacad ugu yihiin dalkan horumarintiisa markii annagana taagan tahay dadka aan naqaano iyo jufooyinka la sheegayo wax soo dooranayo iyo in ayaga culayska la saaro la yidhaahdo war maxaan ku raahdaa dalkii ka fakera dad fiican madira in la yidhaahdo marka ayaga xagga tagaana in la yidhaahdo lacagaha wareegaya ku xisaabtamina waxaad ku xisaabtamaan dalkiinu meel yaallo saad uga kicin lahaydeen inaad ku dadaashaan taasina waxa weeye qof kasta laga filayaa macalinka laga filayaa ardayga laga filayaa kan maxaan ku raahdaa farsamo yaqaanka laga filayaa qof kasta laga filayaa kan siyaasiga laga filayaa kulligeena I think waajibaadna wada saaran way inaan isxasuusino in haddayna siyaasadda noo hagaagin amnigana noo hagaagi maayo horumarna ma gaarayno halkaasaan fadhinayna marka particularly gaar ahaan haddeertaan waxa lagu jiro waa u jeednaa laakiin inaan waxaan qabaa qof walbaba codkiisa inuu isticmaalo meel walba waxaan ku raahdaa lagaga hadlo arrimahaas lagaga hadlo waxaan rajaynayaa isaaq iyo aan banaanka ku sheekaysano maaragtay isaan codkeena uu noqon lahaa cad cod maxaan ku dalkan wax u tara maaragtay inaan abaabulkeena inuusan harin maaragtay waa talo aad u fiican waxaan soo gaarnay waqtigii gabagabadaan soo gaarnay waxaan rabay wasiir aan kaaga mahadceliyo waqtigaada qaaliga ee qiimaha badan runtii aniga shakhsiyan ka xasan mudan ahaan farxad weyn ay tahay barnaamij aad adiga marti ku tahay in aan xiriiriyo waxaan kaloo rabay inaan u mahadceliyo ka qaybgalayaasha oo dhalinyaro u badnaa iyo inta nagala socotay Facebook live oo nagala socotay waxaan rabay muxaadarada inaan halkan kusoo gabagabeeyo waxaan kaloo rabay inaan idin xusuusiyo taxaan ay noo noqon doontaa muxaadarooyinka dambe ee inoo imaan doonaan waxay ka sheekeyn doonaan barashooyinkii dadbanaa ee waddankan ka dhacay wixii ka dambeeyey carta wixii ka dambeeyey doorashooyinka dhacay way noo soo socdaan muxaadarooyinka hadlaya wasiir waa mahadsantahay iyo ka qaybgalayaasha waxaan rabaa inaan adnaan ku mahadceliyo maaragtay barnaamijkan aad ugu marti qaaday iyo ka qaybgalayaasha aniga
waxaan aad uga faa'iidaystay su'aalaha موضوعنا وموضوع ولي أن فرح كهيو دراسة متقنا أن بلوغيدي أن جوجو مكاني فرصة دي هايدينا سؤالها كان عند جيستو حنقول هذا هدو تنجحينا هي حيابها ربينا هنا كدرس هذا بان كلمة علمنا يا وزير وما سنتها المحاضرة دي هالكاس نوجو اكتاي هبين ونحسن